walagata wada dunido hodamba walagata wada lagu daawada sida tireerka cawl lagu daawada hadda waxa khadka si toos ah ugu jira wariye Cali Taani oo inooga warami doona wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda deegaanka Boqdarkayn Cali Taani Umar waan dhawahay hadda waxaan ku suganahay deegaanka loo yaqaan Boqdarkayn oo qiyaas ahaan magaalada Caynabo kaga beegan dhanka koonfureed maalintii shalay waxaa ka dhacay dagaal culus dagaalkaas oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada SSC dagaalkaasi waxa uu galay maalintii labaad hadda uu dib u qarxay dagaalkaasi ee khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa shalay ka dhacay lama xaqiijin karo maantana waxa dhacay laakiin dagaal ayaa ilaa ka socda dagaalku xageebu ka dhacay hadda dagaalku waxa uu ka socdaa deegaanka Maraajabay oo dhaxeeya Yeelo iyo Boqdarkayn way hadda ya magaalada gacanta ku haya walaal hadda gacanta waxa ku haya dadkii deegaanka oo iska difaacay isla markaasina dib isaga riixay ciidamada khaatimo ama SSC loo yaqaano ee deegaanadaasi ku afkirsada Yeelo xaaladda goobtaasi waa garanaysaa meel dagaal ka dhacay shaqsi kasta oo bulshada ka mid ah deegaankan reer guuraaga ay qorigu sitaa haddii aad nooga waranto khasaarihii shalay iyo maanta ka waran inta la og yahay labada dhinacba walaal khasaare dhimasho dhaawac isugu jira ayaa ka dhacay shalay hadda lama xaqiijin karo maanta dagaalka socda way haddii aad nooga waranto dagaalkii shalay isagu sidee buu ku bilaabmay wuxuu ku bilaabmay ciidamada SSC loo yaqaano ayaa soo weeraray dadka deegaanka ee reer guuraaga ee degan deegaanada Boqdarkayn isla markaasina waxa halkaasi ka dhashay dagaal sababay khasaare dhimasho dhaawac isugu jira aad baad walagata wada dunido hodamba walagata wada lagu daawada sida tireerka cawl lagu daawada